Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha meel walba aad joogtiin waan islaamayaa waa walaalkiin shakuur oo idin leh soo dhawaada. Su-aalo waxaa igu soo noqnoqday oo see u bilaabaa intee ka bilaabaa maxaan sameeyaa marka bal waxaan sameynayaa video gaaban oo aan ku tusay asxaabta barnaamijkan crypto khaasatan bilowgii koowaad albaabkii koowaad intee laga soo galaa marka asxaabta soo dhawaada insha Allah. Aniga tala ahaan waxaan siinayaa asxaabta inay mar ka hore bartaan waxaan cryptoda wuxuu yahay blockchain wuxuu yahay why adiga crypto mise blockchain cryptocurrency why adiga lacagtaada u gashanaysaa markaad taa baratid oo aad fahamtid ujeedada laga leeyahay cryptocurrency iyo blockchain iyo future-ka dhow sida aniga aaminsanahay in kambaniyadan oo hadda soo saarayo koonyadan cryptogada ah oo maxaa la dhahaa ii sheeg blockchainada ay ku dhisan yihiin in wax badan ay ka bedelayaan dhanka teknolojiyada mustaqbalka, dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, dhanka maxaa la dhahaa ii sheeg bangiyada, dhanka howlaha guud ee dowladda. Markaa saa dareensana aniga waxyaalo badan teknolojiyadan blockchainka ay wax badan kusoo siyaadin doonto ayna fududeyn doonto maxaa la dhahaa dhaqdhaqaaq walbo ku saabsan arrimahaas hadda aan xusay. Marka taa markaan kasoo tago cryptocurrency waa la maalgashtaa coin walbo wuxuu leeyahay ujeedo sidaan sheegay marka qof walbo qiyaastiisa wuxuu ka qiyaas qaadan doonaa wuxuu leeyahay coinkan mise blockchainkan wuxuu meel aan caadi ahayn buu ka gaari doonaa maxaa la dhahaa dhanka maalgashiga. Sidaas darteed waxaa tartan aan caadi ahayn ku jiro kambaniyo badan iyo wadamo badan oo soo saarayo maxaa la dhahaa koonyo oo in la maalgashado. Marka maalgashigaas wuxuu keenayaa haddii suurto gasho coinkaas inuu hirgalo ama maxaa la dhahaa la isticmaalo ama contract la galo shirkado ama dowlado oo wixii dhaqaaqan in maalgashigaas uu ku noqdo maalgashi barakeysan oo faa'iido aad ka keentid. Sidaa darteed baa waxa waaye maalgashigan loo sameeyaa. Marka maalgashiga sameeye intee maalgashiga ku sameynay ma bangigaaga ma broker ba ma exchange ba su-aalahaas baa soo noqnoqonaya. Marka markii hore markaad soo baratid waxaasoo dhan ama aad research samaysid oo akhrisidid hadday ku qanciso kaa degto arrintan aad rabtid inaad lacag galisid kow waxaad sameynaysaa waxaad u baahan tahay exchange wax la dhaho. Marka exchange waa badan yahay waxaan dhanna wuxuu ay ku degsan yihiin ama ay ku samaysan yihiin waa qaab teknolojiya waa qaab aad kusoo degsanaysid telefoonkaaga applicationadan badan sida hadda waxaan ka hadlaynaa exchange aan ka hadlaynaa. Marka exchange markaa rabtid inaad soo degsatid uma baahnid inaad bangi tagtid waxaa u baahan tahay keliya telefoonkaaga Apple Store-ka inaad gashid aad ku qortid Binance waa qortay waa kana Binance by Bitcoin and crypto ku qoran
aniga waa ii degsan yahay adiga hadduu kuu degsanayn waxaa leedahay ii deji waa kana exchange-ga laga dhex helo cryptocurrency-ga mafahant hadda waxaa ku qoran meeshan markii application-ka la soo saarayay waxaa ku qornaa 200 plus coins ku jiro laakiin waa ka badan yihiin hadda sababtoo ah markii kan la soo dejinayay muddo hore okay maxaa kale mid kale waxaan sameynaynaa mid la dhaho Coinbase iyo Coinbase Pro waa kana Coinbase dadka Mareykanka jooga badanaa isticmaalo marka Coinbase waa kana waa application waa wallet electronic wallet waaye Coinbase wallet Coinbase Pro kana waa Coinbase Pro marka Binance hadda fiiri kan Coinbase laba application waa Coinbase Pro iyo Coinbase oo caadi ah laakiin Binance waa hal application halka application waxaa ku dhisan yahay dhexdiisa labada maxaa la dhahaa Binance oo normal ah iyo Binance Pro ga sida hadda kan laba uu kala yahay Binance laakiin waa hal application halka application baa waxaa ku dhisan labadaba marka hal meel waxaa jirta aad taabanaysid wuxuu ku geenayaa dhanka kale okay kana soo degsatay kan waa soo degsatay waxaa rabtaa waxaa u baahan tahay inaad register iska samaysid register markaa samaysid ID kaarkaaga adresskaaga waxaa dhan markaa dhamaysid waxaad imaanaysaa Binance waa imaatay hadda meeshaan ii sheegay waa kana register markaa samaysid waxaana u baahan tahay kale waxaa u baahan tahay security-ga xataa inaad adkaysid markaa soo degtid meeshaan hoos security ku qoran aniga hadda fiiri security-gayga waa 1 2 3 waa telephone waa waxaa la dhahaa email waa Google authenticator-ka baa security-ga ma fahamtid marka security-gana waxaa fiican inaad iska adkaysid intaad lacag ku shubid okay wixii markay okay ku yihiin hadday waxaan sheegay waa kana waa Binance late haddaa inta taabto wuxuu i geenayaa Binance Pro okay Binance late okay markaa imaatid boqolaal coin baa inta ku jirto hadda tusaale waxaan rabaa Binance coinkiisa inaan gato waxaan leeyahay Binance markaan research sameeyay trade $100 aan rabaa inaan geliyo buy aan leeyahay wuxuu isiinayaa applicationadan uu isiinayaa marka wuxuu siinayaa credit card inaan ku iibsan karo application-kan qof walba wadanka uu joogo iyo siduu u iibsan karo oo lacag ugu shuban karo oo tusaya okay taas waa iibsigii okay waxaa rabtaa inaad research samaysid coinka intaada gadanin research baa rabtaa inaad samaysid waxaa jiro oo aan research lagu sameeyaa meelal badan waxaa ka mid ah website-kan coin market cap waa ii saaran yahay oo ku dhufanaya coin market cap markaa gashid wuxuu ku tusayaa maxaa la dhahaa koonyadii lacagihii maanta intay meeshay maraysay lacagta meeshay maraysay 24
24kii lasoo dhaafay isbedelkii ku dhacay, market capkooda, volume-kooda, supply-gooda, 7 beri u dambeysay dhaqdhaqaaqa chartiga, waxaas dhan ku tusaya. Okay, haddii rabtid inaad gudaha usii gashid oo information badan aad rabtid inaad ka heshid coinkan iyo wuxuu u taagan yahay, waxaa imaatay meeshan hoos u soo dhaadhac, wuxuu ku leeyahay who does XRP work, who do you buy XRP. bal haddaad taabatid wuxuu ku tusayaa all information about XRP. kan haddaad taabatid more maxaa la dhahaa information, intaad taabatid more information. waxaan markaa research haddaad samaysid waxaad ku fahmaysaa. intana waa charting. Okay, mid kale oo aniga aan jeclahay waxaa la dhahaa Coincago. waa application, waa similar to coin kii haddartaan aan fiirinayna. hadda fiir Shiba Inu aad taabtay. Shiba Inu intuu marayo tusayaa. korkaan haddaa aragtid price chartiga, exchange portfoliodeeda hadduu aan igu jiro in kale iyo more information. marka exchange haddaan taabto meesha aan ka heli karo oo tusaya a lot of exchange baa ii saara meeshaan. waxaa ku jiro Binance, kuwii haddaa aan ii sheega dejinaya. Coinbase kuma jiro kan, laakiin waxaa maqlay in Coinbase lagu soo wado. Okay, more information haddaan dhahno wuxuu tusayaa pagekii ay leeyihiin Shiba Inu. wuxuu tusayaa Twitterkoodii, wuxuu tusayaa Telegramkoodii. intana noota yar oo ku saabsan about Shiba Inu. mid kale haddaan galno tusaale waxaan galaynaa fee chain. lacagtii tusayaa meeshuu hadda marayo, chartigii. haddii aan taabto sanad, haddaan taabto 3 bil, haddaan taabto 1 bil, haddaan taabto 7 beri, waxaasoo dhan way tusayaa. exchange-ga koraan aadayaa, wuxuu tusayaa all exchange-ga laga heli karo. maxaa la dhahaa ii sheeg oo laga gadan karo. kabacdi information aan dhahayaa. wuxuu tusayaa website-kii maxaa la fee chain. wuxuu tusayaa Twitterkoodii. haddaan Telegram taabto wuxuu geenayaa toos Telegramka. marka Telegramka waxaa hadda member ka ah Telegramkan 38,585 member. waxaa online ah 2,896 online ah oo hadda wax qorayo. maxaa la dhahaa ii sheeg. Okay, waan ka noqonaynaa. marka hadda waxaan soo degsanay Binance. waxaan fiirinay research koonyada meeshaan ka barno. wax kaloo jiro oo aan aad u xiiseeyo waxaa trading. mid kale baa jirto, laakiin muhiimadda bilowga haddaa meesha saas ku bilowdid waxaa waaye. mid kale waxaa jirto trust wallet. waa kan waa trust wallet. mid baashan cadaanka metamax ayadana waa ii degsan tahay. waa walleto decentralized ah oo adiga kiiga adiga haysid. 12 xaraf baa lagu siinayaa. waa inaad adiga aad maxaa la dhahaa meel fiican aad magaciisaysid. marka fiir waxaan dhan waa trust wallet. kooniyadan hadda anay ay ku jiraan. maxaa la dhahaa ii sheeg. haddaan rabo waxaan ku celinayaa Binance. haddaan rabona waa iska gadaya, intaa ku gadaya.
okay. maxaa kale waxaan u maleynayaa waxaa hilmaamay twitterka asagana waa muhiim research lagu sameeyo waxaa qoraysaa meeshaan searchiga waxaa qoraysaa dollar sign marka luna qoraysaa luna waa magaciisa mise shiba hadday ka hadlaynay waxaan qoraynaa ama luna naftigiisa okay luna haddaa qortid waxaa kuu soo baxayo hoos haddaa u tagtid all about dadkii waxay ka hadleen oo luna ku saabsanaa everything about luna news waxyaalaha lasoo wado luna luna waa coin intaan xiisad aan caadi ahayn ku hayo dadka kriptada isticmaala marka saas waa soo degaysaa waa fiirinaysaa twitterka waa qaab loo isticmaalo cryptocurrency researchgeeda okay su-aal kale waxaa jiray la dhahayo ma jiraan wiilal Soomaali mise video af Soomaali ku baxayo waa jiraan waxaa ka mid ah oo aan xusi karo inta aan ku xusi karo videos photo waxaan xusi karaa wiilkan walaalkane u qoran wax walba crypto daily wuxuu soo geliyaa maya daily ma aha wuxuu soo geliyaa weekly I think wuxuu soo geliyaa about crypto news iyo some strategy oo crypto ku isticmaalo wax walba crypto la dhahaa waxaa kaloo jiro crypto Somali TV wuxuu soo geliyaa news most of news waa daily newsku badan oo ka hadlaa iyo some strategy xatana oo ka hadlaa asagana waxa waaye crypto Soomaali ah waxaa kaloo jiro YouTube-keena Shakuur Cabdalla asagana ayaantan waxa ku jira dadka oo sida tartiibta waxa soo geliyo Shakuur Cabdallana waa kana insha Allah waxaan isku taxalluujinayaa inaan badiyo fiidiyoyaasha marka dhowr video ku jira meeshaan sida maxaa la dhahaa buy limit iyo stop limit-ka oo aad u fiican sidee koon faa'iido iyo khasaaro okay sidee koon oo cryptocurrency loo iibsana buy limit-ka waa kana iyo sell limit-ka ku ahaa falanqaynta sell limit iyo trading view-ga website-kan trading view-ga xataa waa fiican marka asxaabi oo ku dheeraaday insha Allah waxaan jeclaan lahaa inaad dadka cusub oo ku cusub maxaa la dhahaa cryptocurrency ay ka faa'iidaystaan insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته